Absolutely. I could just imagine walking around here and asalaamu calaykum markasal karaama wuxuu idila diyaar yahay idinka gurigiina jooga inaad ku baran kartaan culumta diiniga ah oo ugu horeeya qur-aanka ubadkiina inaad ku bari kartaan balse intaynaan bilaabin muuqaalada maanta aynu kusoo qaadan doonno barnaamijka muuqaaladan waxa aynu kasoo qaadanaa meelo lagu kalsoon yahay ama ku run ahaanshaha ugu dhow loogu kalsoonida badan yahay balse biniaadamka khaladku oo ka suurtooba waxay noqon karaan qaar go'aan ku samays ah oo feeg ah aynu bilaabano muuqaaladeena maanta muuqaalkan aadka u naxdinta badan waxaa lagu tiriyaa muuqaalada sida waaqiciga ah loogu dhex arkay waxyaabo aad u layaab badan oo u naxdin badan sababtoo ah muuqaalkan marka hore waxaa lagu duubay kaamirada moobilka oo keliyata muuqaalkanna waa mid qadiimi ah oo saa loo sii editin garan karin ama waxyaabahaas oo dhan lagu dardari karin waxaana arrintan dhab kasii dhigaya dadkii hore u deganaa gurigan oo arrimahan marar badan ka hadlay ninkan youtube-ka soo geliyey muuqaalka ayaa waxau yidhi nin ayaan ka karaystay guri kadib waxaan bilaabay inaan guriga kala hagaajiyo oo aan habeeyo oo aan rijiyeeyo kadib ninka ima uusan joogin waxaan u duubay muuqaal si aan u tuso natiijada gurigii aan hagaajiyey ninkii guriga lahaa si aan muuqaalka ugu diro laakiin muuqaalkii aan duubay ayaan ku arkay wax aada u layaab badan sida aad wada arkayseenba ninka agtiisa waxaa maray wax u eeg wheelchair ama kursiga ay ku socdaan curyaamiintu qisada gurigan ayaa arrintan sii xaqiijinaysa qisada gurigan waxay tahay 20 sano ka hor ayaa gurigan waxa ku noolaan jiray nin kaas oo aan socodka aan awoodi jirin waxa uu ku dhex socon jiray guriga dhexdiisa wheelchairkaas isagoo ku dhex socda maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in meelaha lagu dabaasho ee gurigan ku dhex yaala uu ugu dhex dhaco oo ugu siibto kadibna uu halkaasi ku dhinto qaraq dartii dad badan ayaa gurigan soo maray oo soo degay ninkan muuqaalka duubay ka hor waxayna sheegeen inay gurigan ku arkaan hadh iyo wax muuqaalkiisu u eeg yahay nin wheelchair fuushan fikirkaagu maxaa u noqon karaa ama maxaad u malayn kartaa waxan ama qisadan aadka u layaabka badan iyo ninkan muuqaalka uu duubay iyo waxa ka dhexeeya qaar idinka ka mid ah ayaa waxay igu soo direen Instagram-ka muuqaalkaas oo looga hadlayay nin isagoo duurka ku dhex jira sawiray gabadh jin ah muuqaalkaas waxaa linkigiisa ama Facebook-ga ayaa u geeyay halkaasna warbixin buuxda kama heli karaysid cid og asalka muuqaalkan meesha laga soo qaatayna waan waayay kadib qof ayaan ka helay linkiga YouTube-ka kadib baaritaankaas markii aan helay muuqaalkanna waxa la soo geliyay 2020 inaynu ku jirno bishii July muuqaalkanna waxa uu yahay nin ayaa waxa uu tagay meel keen ah oo aan cidi deganin oo dhismo qadiim ah uu ku yaalo kadib muuqaal ayaa uu iskaga soo duubtay vlog sida caadiga ah kadib waxa uu ka arkay wax aad u layaab geliyay oo ku nixiyay kadib markii uu daawaday maalmo kadib muuqaalkaasi
sida aad wada daawanayseenba isagoo wata duubista muuqaalkiisa ayaa waxaa muuqaalku mar keliyata uu ka duubay waxa u eg jin ama gabadh jin ah kaasoo isku hoos qarinaya gidaarka hoostiisa. Haddaba dadkii ka hadlay muuqaalkan waxay u kala qaybsameen laba qaybood. Qayb tiri muuqaalkan waa muuqaal uu ugu talagalay ninku oo uu sameeyey si kastaba ha ku sameeyo ama editing ama isagoo ugu talagalo. Dadka qaar ayaa iyaguna waxay yidhaahdeen waxani waa jin caadi ah oo uu arkay ama muuqaal uu ka qaaday oo uu ka cabsanayay ninkan iyo aygiisa. Waa sida ay aaminsan yihiin inuu jinku ka cabsado ayda. Haddaba adigu maxaad u malaynaysaa fikir ahaantaada? Labada fikir ee ay dadku soo jeediyeen kee ayaad raaci lahayd oo kula macquulsan majinka mise editingka? But must have been gorgeous in its day. Absolutely, I could just imagine walking around here and gabadh ayaa soo dhigtay barteeda TikTok muuqaal ay kaga hadlayso inay iibsatay gurigaas oo ay ku iibsatay qiimo jaban. Gurigan oo mar hore laga guuray. Gurigan markii ay kasoo duubtay muuqaal ay soo dhigtay barteeda TikTok ayaa waxaa soo gaadhay kommentiyo iyo fariimo aad u badan kaas oo loogu sheegayo in muuqaalka ay dadkii daawaday ay ku dhex arkeen wax aad u la yaab geliyey ugana nixiyey oo aanay arag gabadha muuqaalka markii hore duubaysay balse ay arkeen daawadayaashu. Bal waxa ay isla arkeen daawadayaashu ayaynu ku daawan doonaa muuqaalkan. walking around here in some fancy dress or something and just amazing. But must have been gorgeous in its day. Absolutely, I could just imagine walking around here in some fancy dress or something and just amazing. Just imagine walking around here in some weji aad u la yaab badan una cabsi badan ayaa kasoo eegayay dhinaca daaqadda. Markii ay aragtay ee dib u daawatay muuqaalka aad ayaa ay u naxday una cabsatay. Muuqaal kale oo ay kaga hadlaysay arrintan ayaa waxay ku tiri gurigan waxaan ka iibsaday faamil mar hore deganaan jiray, waxayna ku iibinayeen qiimo aad u jaban. Marka loo eego gurigan aad ayaanan ugu farxay, balse waxay la yaabanayd maxay ugu iibinayeen qiimahan aadka u jaban gurigan. balse iminka way ogaatay sababta ay faamilku ay ugu iibinayeen gurigan. Markii horena ay u xidheen ay iskaga guureen. markiis Karaama online ee quraankii diinta ku baranaysa si online ah halkaad kala xiriireysaan description-ka idin soo dhigaya. intayna bilaabin muuqaalkana fadlan subscribe saar intayna bilaabin muuqaalka ugu dambeeya. waxaan ogahay waxyaabaha ugu cabsida iyo la yaabka badan ee kugu dhici kara adiga. waxaa ka mid ah adiga oo shaqadaada ku jira ay kula gaadho waqti dambe oo habeenimo ah oo aad sii wadatid shaqadaada, adiga oo xafiiskaaga dhex fadhiya aad maqashid waxyaabo jabaq iyo waxyaabo soo dhacaya oo kale ama qof kugu soo galay meesha. waxaad dareemaysaa wax aad u cabsi badan cidna iyada oo aysan meesha kula joogin ama ay kugula sugneen. waxa ay sidaas oo kale ay ku dhacday ninkan. shirkadan mid ka mid ah kaamaradaha ku xidhnaa ee CC kaamarada ayaa waxay duubtay muuqaal aad u cabsi badan oo aan laga rumaysteen xitaa ninkan haddii uu asxaabtiisa uga sheekeyn lahaa. ninkan ayaa shaqada ku qornaa habeenkan keligii ayaa uu joogay xafiiska ama shirkadaba guud ahaan. waxa uuna ku dhacay waxyaabo aad uga nixiyey oo ugu horeeyeen waxyaabahan.
waxaa furmay albaabka dhinaca kasoo jeeda keligiis iyadoo aan cidi furin, laakiin ninku markii istaagay kuma uusan baraarugin arrintan ama dhacdadan. kadib baaritaan uu sameeyey waxba waa uu soo waayey. kadib waxa uu iskaga soo noqday xafiiskiisa, laakiin kadib markii uu fadhiistay waxaa dhacay arrintan kale aadka la yaabka badan. waxa uu maqlay shay soo dhacay jihada ama dhinaca kasoo horjeeda. kadib waxaa dhacday in xafiiska halkaa kasoo horjeeda uu shidmo leedhkiisu. waxa uu soo baadhis yidhi bal waxa ka dhacaya halkaasi, laakiin waxaaba ku dhacay wax wixii horeba ka cabsi badan kana la yaab badan. isaga oo baadhaya oo la yaaban waxaan dhacaya. kadib xidhitaanka albaabka dhinaciisa waxaa loo soo tuuray kursiga si xoog leh. aad ayuu noo cabsaday oo meesha iskaga cararay. waxaa laga yaabaa inay noqotaba markii ugu dambeysay oo uu keligii ku hadho shirkadda waqti dambe oo habeennimo ah uu ku sugnaado keligii. muuqaalkan waxaa lagu tiriyaa muuqaalada aadka xaqiiqada u ah aan laga been sheegi karin, sababtoo marka hore waxaa lagu duubay cc camero, marka labaadna sida uu uga radul ficilka ama sida uu uga reaction gareeyay ayaa u eg mid xaqiiqo ah. adiga hadda daawanaya muuqaalka, arrintan oo kale haddii kugu dhici lahayd ama aad ku jiri lahayd booska ninkan, meesha ma ka carari lahayd mise shaqadada ayaa si tartiib ah aad usii wadan lahayd? waxaan rajeynayaa fikirkeena dhammaan muuqaaladan inaad kaga soo wada jawaabi doontaan commentiga, balse muuqaalka like saar.